Rishi Kapoor oo lagu tilmaami jiray halyeegii haasawaha ee shirkadda Bollywoodka ee dalka Hindiya wuxuu geeriyooday 30kii bishii Febraayo ee sanadkan 2020. Dilaaga oo 67 sano jir ahaa wuxuu u dhintay xanuunka kansarka taasoo uu muddo dheer la noolaa. Wuxuu qayb ka ahaa jilayaasha reer Kapoor ee loo yaqaano ee sanadaha badan aqlabiyadda ku lahaa filimada ugu caansan ee Bollywoodka. Sanadkii 2016 Rishi wuxuu hadal ay dad badan ku dhaleeceeyeen oo aflagaado iyo cunsuriyad lagu tilmaamay ka sheegay Soomaaliya. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka uu kaga hadlayay sida loo kala guuleystay tartankii ciyaaraha Olombikada ayuu yiri: wararka Olombikada waxaa soo dhacay natiijadii soo shiraacday ee ugu horeysay. England waxay qaadatay dahab, Australia waxay qaadatay qalin, Soomaaliyana waxay qaadatay doontii, isagoo ula jeeday in Soomaaliya tartanka u timid kaliya in ay doon ku guuleysato si ay burcadbadeed u noqdaan. Qaar ka mid ah dadkii arkay qoraalkaasi ayaa eedeyn kala dul dhacay jilaaga, waxayna qormadiisa ku qeexeen mid ka turjumaysa cunsuriyad. Doorahan wuxuu shaleemooyinka filimada lagu daawado qabsaday sanadkii 1973 markaasuu oo doorkiisii ugu horeeyay uu hogaamin uu ku qaatay filim ka hadlayay qiso jaceyl oo dhalinyaro dhex martay. Laakiin markii ugu horeysay Rishi Kapoor wuxuu jilista filimada ka soo muuqday isagoo caruur ah sanadkii 1970 wuxuuna ka qayb qaatay filim uu aabihiis Raj Kapoor jilayay ee Mera Naam Joker. Qaar ka mid ah filimadiisa sida weyn loo daawaday waxay soo baxeen 1980 iyo 90 waxaana ka mid ahaa Qalqalmayn, Kaarzi iyo Jaani oo aad u gadmay. Rishi Kapoor wuxuu filim laga daba dhacay oo jaceyl ahaa la sameeyay atriishada lagu magacaabo Neetu Sen. Lamaanahan ayaa jaceylkooda aan ku ekeenin jilitaan kaliya, waxayna isguursadeen sanadkii 1980. Wiilkooda Ranbir Kapoor wuxuu ka mid yahay jilayaasha hadda ugu caansan shirkadda Bollywoodka, taageero weyn haysta. Sanadkii 2018 Rishi Kapoor waxaa ku dhacay nooc ka mid ah kansarka. Bishii Sebtembar ee sanadkii la soo dhaafay ayuu ku laabtay dalkiisa Hindiya kadib markii daweyn hal sano qaadatay lagu sameeyay magaalada New York ee dalka Mareykanka. Febraayo dhamaadkeeda ee sanadkan 2020 ayaa loola cararay isbitaal kadib markii uu ka cawday ciriiri xagga neefsashada ah, sida uu walaalkiis Ranbir Kapoor u sheegay warbaahinta Hindiya. Wuxuu ahaa jilaagii labaad ee Hindiya u dhashay oo isla bishaas dhintay. Maalintii ka horeysay waxaa geeriyooday Irfan Khan oo isagana ka mid ahaa jilayaasha caanka ah. Irfan ayaa isagana u dhintay nooc dhif ah oo ka mid ah cudurka kansarka.